saraakiisha iyo askarta ciidamada qalabka sida iyo marti sharafta kale ee nagala soo qayb gashay munaasabadan qaaliga ah oo sanad guuradii 26aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna beegan 2 bisha 2 2020 mudanayaal iyo marwooyin waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa ka soo qaybgalka munaasabadan laga soo bilaabo sanadkiisii koowaad ilaa maanta uu 26 jirsaday wuxuu ciidanka qaranku heegan u ahaa difaaca qaranimada laba taabtaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu diyaar u yahay inuu horo naftiisa qaaliga asaaska ciidanka qaranku wuxuu la kowsaday dawladdii labaad ee ka dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu soo dhisay Boorama oo ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa Cabdiraxmaan Cali Faarax madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka dakhliga ka ahaa inta hadda joogtan arkayo taasuu la kowsaday dawladda waqtigaa waxaa jiray ciidan beeleedyo ku kala firqsan gobollada waxaana dawladdii golayaashii odayaashii iyo indheergaradkii u muuqatay in loo baahan yahay ciidan qaran oo dawladdana sal u dhiga ammaanka dalkana xasiliya waxaa la abuuray markaa oo ka dhalatay in la abuuray guutadii koowaad iyo guutadii labaad iyadoo lagu saleeyey saamiga beeluhu ku kala lahaayeen golaha guurtida ilaahay baa mahad leh ammaanna waxaa leh raggii hawshaa hirgeliyey taasoo ah taa maanta aan kaga libaysanay aynu qayrkeenna kaga wanaagsannahay horumarkana aan ku gaadhnay ciidanka qaranku intii ka dambaysay wuxuu ku dhaqaaqay sidii maamulka dawliga u fudin lahaa ee gobollada loo gaarsiin lahaa number 2 sidii ciidanku u sugi lahaa xuduudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland number 3 wuxuu ku tallaabsaday sidii tababar iyo tayaba ciidanka kor loogu qaadi lahaa number 4 wuxuu abuuray dugsiyad tababar iyo dhaqan celin loogu sameeyo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waajibaadka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland difaaca ilaalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland madax bannaanideeda dalkeega iyo dawladnimadeeda number 2 gacansiinta ciidamada kale iyo hay'adaha kale ee dawliga ah markay sugayaan amniga qaranka taageeridda iyo gacansiinta dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hadday timaado xaalad degdeg sida aafada iyo waxyaalaha soo kordha ee kale ee dabiiciga ah dhinaca tababarka ciidanka qaranku wuxuu leeyahay 4 dugsi oo lagu tababaro ciidamada dugsiga Darweyne oo gobolka Maroodijeex ka tirsan dugsiga Sheekh oo gobolka Saaxil ka tirsan dugsiga Samakaab oo gobolka Sool ka tirsan iyo dugsiga Bixin oo gobolka Sanaa ka tirsan ilaa hadda 3 dugsi ayaa ku jiraan ciidamo dhibooya oo lagu tababaraa kulliyadda saraakiisha Cabdilaahi Askari waxaa tababar ku qaatay shaqo qaran waxaana hadda ku jira jaamiciin shaqo qaran ee doortay inay ku biiraan ciidamada kala duwan ee qaranka booliiska usluubta ciidamada badda oo qaadanaya tababar 1 sano waxaa xusid mudan inay ka mid yihiin 10 hablood oo saraakiil noqonaya oo aan tababarka ciidanka waxba looga naxariisanay si rag u qaata waxa kaloo ku jira saraakiil 1 sano uga harsanay tababarkoogii
sanadka horena Itoobiya ku soo qaaday sanadkii dambana halkan loogu dhammaystirayo tababarada dibadda ciidanka qaranku tababaro badan buu dibadda u diraa tusaale ahaan halkan waxaa ku aragtaan waa ardaydeennii balaata meel la yidhaaho ayay joogaan oo 350 kilomitir u jirtaa Addis Ababa tababarka waxay ku samaynayaan halkaa balaata waana arrin run ah weeye ciidamadeena danab yaa ku tababarta halkaa waxa tababar dibadda aan noogu maqan war college ba kulliyadda dagaalka saraakiil baa noogu maqan staff college-ka saraakiil baa noogu maqan junior staff college-ka saraakiil baa noogu maqan waxaasoo dhan waa infantry-ga leyli sarkaal iyaguna way noo maqan yihiin intaa aan soo sheegay oo kale 6 bilood kadib ayay soo dhammaynayaan tababarkoogii oo uu ku egayay bisha August buu ku egayay meelaha waxaa kaloo noo maqan farsamo yaqaano 3 sano koorsa baranaya maadaama dadkii hore gaboobeen in farsamo yaqaanada nooc kastaba haadii la tababaro ay sad farsamo yaqaan 3 sano noogu maqan yihiin waxaa noo maqan injineero iyo dhakhaatiir digriga koowaad iyo digriga labaad isku jira oo haddana ku maqan koorsa dheer waxaa sanadkan noo qorshaysan intaa iyo in kale ilaahay hadduuna gaarsiiyo insha allahu tacaala dhinaca dhismaha waxaa sanadkan noo hirgalay deyrka ciidanka qaybta 12aad ee Burco oo 600 mitir ah dhismaha guriga weyn ee jimicsiga ama gymnastika oo ku yaala miiska saraakiisha dhismaha cusbitaalka ciidanka qaranka oo ahaa inuu dabaq ahaado laakiin hadda qaybtii hoose noo dhamaatay insha Allah qaybta sarana aan sanadkan dhamayn doono madaxweynuhuna soo furay qaybtii hoose waxaan daayacto ku sameynay xeriyooyinka ciidamada waxaan sameynay waddo laamiya oo isku xidhaa iridka qaybta 31 ilaa taliska qaybta waxaa sanadkan loogu jiro qorshaha in guryo la seexdo iyo xafiisyo laga dhiso qaybta 3aad ee Ceerigaabo gobolka Sanaag waxaa kaloo qorshaha loogu jiro sanadkan bilaha soo socda cusbitaal ay dhisi doonto dowladda Ingiriisku oo hal dabaqa oo iyadoo ay qalabayn doontana ilaahay hadduu yidhaaho oo laga dhisi doono halka cusbitaalka hadda la furayay ku yaallo taasoo ciidamada qalabka sida amba nooc kastaba ha ahaadaana ay wada isticmaali doonaan waxaan aasaasnay hay'ad dhismo oo markay ku filaatay ciidanka qaranka ka qayb qaadata qandaraasyada magaaladana waxaana hay'adaasi ku soo guuleysatay dhismihii deyrka madaxtooyada dhismihii shaqo qaran ee Darweyne taribuunka salaanta lagu bixiyo imikana waxay dhisaysaa hoyga taariikhda ah ee laga dhisayo bartii khayraadu ay hay'ad ee caasimadda Hargeysa mudane madaxweyne gaadiid badan baa noo iibisay sanadkan iyo sanadkii hore haddana baahida gaadiidku waa mid joogta oo mar walba loo baahan yahay dhinaca howlgalka ciidanku wuxuu sanadkan u badnaa gobolka Sanaag waxaa ka mid ahaa shaqaaqadii beelihii Ceelafweyn iyo Darweyne isku leenay oo nagu fogaato in badan soo socotay insha Allah ilaahay mahadii hadda nabad baa laga gaadhay laakiinse in badan baa ciidanku ku rafaaday arintaasi shaqaaqadaasi waxaan howlgal la galay damalaha gar ayaan ka galay oo nin wasiiriintu ciidan badan soo kaxaystay oo Puntland halka la yimid dagaal waxoogaa dhacay khasaarana waa dhacay inkastoo dhanka iyaga aanay jirin laakiin dhanka kale khasaaro waa ku dhacay waxa kaloon hore ugu soconay Yube oo hadaaftima ku dhow
وفي لي هدفتي أنا واحد نوجرتا 20 كيلومتر برانينا واحد نوجرتا 50 كيلومتر إذا كل خاصو رأس واحد كلام وحكي قبلنا إشقاق دي جوه النهاية إنما دي دليل دي اللي قلدي أو أن هل كو كنتوا إنكرنا نستي أنا أن ربطت دوسي بدن إن هل كو هاي نسيبونا أن هذا قسم من نقطة إذا ما دي قرن كجمهورية الصومال مدن مدحويدي هذا التليه جودة إذا ما قلب كسيدودان وحنو ديارنا هاي وحي الشعب كانوا قبل قاضي هاي إن حد قرن كاس سجنه إلهي ذكي إن هالكاجنه وإلهي نكرجينا ديارنا ونهاي إن أمر قاضنا ديارنا وإذا كقرن كاللغو يقان إنه ما إن مر والبا يهي تمام الكدول قافدية مر والبا ماشى أو تجو القسم هي مام الدولية وحنا تصالة مقالوا يكونوا قاع مرمان وحنا تصالة غفلان وهذا تكرر وتولي يرهيد ما أنت أنا عاصمة والله كي لا كون شنطة بقول يوها ما أنت شن كون أو مريو وحكروا تاعنا إن يبي ويدنا تولي يرهيد ما أنت هو ماشي أقول دق على بدن قبل كسنات أي تاي ما أنت صوبتنا وحويان عيدك إذا مضوا ماشي يدقان ويا عمران وحكى قرنا يضدك مركو أود لقى قاضو إلى تكرر نسك الشوجا ويا قرنا يعني سدودك هانجري مركو إذا مضوا تجين سيك هدقان ويا عمران إذا مضوا مقالونك